بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حواد mahadsantihiin dhammaan bulshada ku xiran barta Somali Academy waxaan insha Allah taala baqaadi doonaa duruustii aad uga barateen Somali Academy waxaan halkan ka bilaabi doonaa insha Allah taala duruusta ku baxeen dugsiga sare khaasatan maadada biology-ga si gaar ahaan waxaan insha Allah taala ka bilaabi doonaa galaaska koowaad ee form 1ka haddii ilahay ogolaado waxaa maadada dhigi doona anigoo Cabdiqani Maxamed Cumar waxaan insha Allah taala u wadi doonaa si taxana oo joogta insha Allah taala halka hore saynu ka bilaabi doonaa ilaa insha Allah ku dhameeyno galaaska haddii ay beenno ogolaado waxyaalahan isku boorin insha Allah taala waxa kamid ah muddada aanu dhiganayno in casharada waxaan rajeynaynaa insha Allah taala casharada noqdaan casharo taxanayaal oo isku wada xiran maadaama waxaan taxanayihiin waxa jirta markaasi kulli cashar ka hore u sharaxaya marka waxyaalahan aad ku boorin waxa markaasi ardaygu inuu markaasi cashar ka hore markaasi uu la socdo oo soo dhageysto soo markaasi fahamka dambe ugu dhib yaraado waxa kale oo jiri doonta haddii ay ogolaado markaasi qiimeyn ardayga lagu sameyn doono dhamaadka marka insha Allah taala markasta cutub kasta dhamaado qiimeyntaasna waxa markaas la ku haysaa ardaygu wuxuu bartay taasina marka muhiimadeedu waxa leedahay ardaygu marka la socdo casharadii hore waxaan insha Allah taala maanta bilaabi doonaa sanadka ka sheegnay ka dhawaajinay galaaska koowaad maadada biology-ga waxaan halkan insha Allah taala ku eegan doonaa introduction to biology hordhaca markaasi biology-ga maadadan waxay ka koobnaan doontaa ilaa 5 cutub oo markaasi waaweyn cutubka koowaad aynu ku bilaaban doonaa insha Allah taala waxa la yiraahdaa introduction to biology hordhac buu yahay markaasi maadada biology-ga wuxuu si markaasi guud u eegayaa dhammaan waxyaalaha aan ku dhigan doono course-ka ama markaasi maadadan biology-ga intaan ku guda jirno haddii Ilaahay idmo balanagna markaasi maadadan biology-ga iyo waxay tahay iyo markaasi maxay tahay qeexitaankeedu biology-ga asalkiisu marka hore wuxuu leeyahay taariikh aad iyo aad u weyn markaasi oo wuxuu la bilaabmay bini'aadamku markuu bilaabmay bini'aadamku deyntu noolaaba marka wuxuu cuno iyo wuxuu soo daweeyo iyo wuxuu markaasi xidho iyo wuxuu galo uma marka ka shaqeynay inta ugu badan markaasi wuxuu ku lug lahaa wax nool dhir ha ahaato xayawaan la cuno ha ahaato wax la isku daweeyo ha ahaato waxa jira markaasi culimo badan oo markaasi ku takhasustay cilmiga markaasi biology-ga culimadaas marka macna culimo diini ma laakiin waa culimo biology-yeed oo markaasi maadadan markaasi la faguray taariikh tusaalahaan oo kale waxa kamid ah markaasi Allahumma salli ala Muhammad ninka loo yaqaano Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Aristotle oo ahaa nin Greek ah oo markaasi takhasus dheer u lahaa biology-ga maadooyin kala fara badan eegay inagu marka waxaas waxaan ka bilaaban doonaa inta dulcideena ah markaasi inaanu ku sameeyno definition-ka ama qeexitaanka inaanu ka bilowno definition waa qeexitaan waxaynu qeexi doonaa biology asalkiisu wuxuu yahay iyo waxa macnaheedu yahay biology kelmadda biology it is a part of science waa qayb kamid ah science-ka which deals with taasoo markaasi la xidhiidha the study barashada of living organisms ee noolayaasha waa qayb kamid ah science-ka oo la tacalluqda amba la xiriidha barashada noolayaasha ayaa waxa la yaqaan biology cilmigaasi haddaba kelmadan biology asalkeedu maaha kelmad ingiriisi laakiin waa kelmad la soo dhiraandhiriyay macnaha waa kelmad laga soo dhigtay luqad kale saa daraadeed waxaan eegi doonaa insha Allah taala luqadda ka soo jeedo iyo macnaha ku leedahay markaasi luqadda ay asalkeeda kelmadda biology it's derived from waxa laga keenay two Greek words laba kelmadood oo Greek-guna markaasi waa maxay xadaarad kamid ah xadaaradihii ugu faca weynaa ee ugu horeeyay ee markaasi aqoonta lagu tuhmo weeyaan marka maadaama iyagu markaasi aqoonta inta badan ayagu aasaaska u dhigeen luqadooda ay ku qori jireen marka inta badan aqoonta markaasi waxa la yiraahdaa Latin bay ku qorantay Latin waa wixii aan ahayn marka luqadda Ingiriisiga saa daraadeed waxaan eegi doonaa afka Latin-ka macnaheedu biology maxay ku tahay marka it's a derived from waxa laga keenay two Greek words laba kelmadood Greek-ga which are kuwaas oo kala ah bios ereyga bios oo afka Greek ku noqonaya which means life macnihiisu waa nolol afka Greek markuu joogo bios waa nolol kelmadda kale raacda ee iyaduna ku dhigsan waxa weeyaan logos amba logi labadaba oo la akhriyaa marka kelmaddan macnaheedu waxa weeyaan study waa barasho amba waa word waa erey bixin amba waa disclosure daah furid intaba markaas waa loo macneeyaa laakiin macnaha ugu faraha badan ee leedahay kelmaddan waa logos macnaha ugu fara badan ee leedahay waxa weeye study barasho diraasin weeyaan saadalaad waxaanu baranay kelmadda biology halka ka timid iyo markaasi macnaheedu luqadda Ingiriisiga waxa uu ku noqonayo saadaladeed it means macnaheedu wuxuu yahay kelmaddan biology the study barashada of life nolosha and living organisms iyo noolayaasha barashada nolosha iyo noolayaasha ayaa waxa loo yaqaanaa biology
haddaba waxaan u gudbi doonaa markaasi qodobka xiga oo ina odhanaya biology has a broad spectrum branches waxa uu leeyahay laamo aad u waaweyn oo fara badan yacni waxyaalo fara badan baa hoos yimaada marka si kale loo dhigo iyo qaybo fara badan oo markaasi kala duwan which covers kaasoo markaasi daboola ama markaasi maxaa yeelay gaadha great deal of materials walxa amba shayo fara badan oo markaasi koobsada for example tusaale ahaan oo kale biology waxaa ka mid ah waxyaalahan soo socda arki doona imika insha Allah number 1 waxaa ka mid ah zoology ereyga zoology waa study of animals barashada markaasi maxay xayawaanka zoo marka la eego kelmadan asalkeedu waa animal baa loo yaqaanaa logina waa study barashada xayawaanka ayaa waxaa loo yaqaanaa zoology waa qayb ka mid ah biology-ga botany ereyga botany asalkiisu marka la eego markaasi waa dhirta iyo nolosheeda saa daraadeed waxaa loo yidhahdaa study of plants barashada dhirta iyo markaasi maxay noloshooda botanyna waa plant life asalkeedu waa nolosha dhirta waxaa soo hoos gala psychology ereyga psychology oo laga yaabo in fara badan inaad ardaygu maqlay macnihiisu waxa weeyaan study of mind and behavior barashada maskaxda iyo dhaqanka qofka ama dhaqanka xayawaanka barashada maskaxda iyo dhaqanku markaa macnaha maaha dhaqanka soo jirinka laakiin waa shaygaasi siduu ula falgalo environmentka ama deegaanka ku hareereysan ee dad leh ee dunyo leh ee yani dhir leh siduu ula noolaado ayaa loo yaqaanaa behavior kelmadda psyche macnaheedu waa mind waa maskax ama brain markaa brain iyo mind waa laba shay oo ingiriisiga isku dhadhow laakiin isla macno kala duwan leh qodobka noo xiga waxa weeyaan haddaba markaynu soo baranay biology aynu soo baranay qaybaha amba laymaha biology uu leeyahay erey markaasi muhiima ayaa inoo yaala oo odhanaya all living organisms dhammaan noolayaashu have some special features waxa ay leeyihiin astaamo gooniya which are called kuwaasoo lagu magacaabo characteristics of living things astaamaha shayada nool which are differentiating kuwaasoo ka soocaya living organisms noolayaasha from non-living materials waxyaalaha noolayn saa daraadeed waa in la helaa astaamo ka sooca noolaha wixii aan noolayn astaamaha waxaa loo yaqaanaa characteristics of living things astaamaha noolayaasha number 1 astaanta horeysa waxa la nutrition waxa la markaasi maxay nafaqaysi nutrition nafaqaysi ereyga nafaqaysi marka laba macno waa in buu leeyahay sayna marka sharxi doono it is waxa weeye the process waa habka by which living organisms noolayaashu obtain ay u helaan and consume ay u isticmaalaan oo u cunaan their food cuntadooda marka waxa isku jirta laba qaybood number 1 waa qaabka uu nooluhu u helo cuntadiisa isla markaana cuntada uu isticmaalo oo uu cuno ayaa la yaqaanaa nutrition nafaqaysi respiration ereyga respiration laba macno ayuu leeyahay labada macno markaasi uu leeyahay ereyga respiration waxaan markaasi ku baran doonaa halkan si guud baynu sheegi doonaa mid ka midna markaasi si xeel dheer baynu eegi doonaa ereyga respiration mar wuxuu noqon karaa it is a process waa habka by which living organisms noolayaashu break down ay u burburiyaan large food particles walxaha markaasi cuntada ee waaweyn into smaller ones ay uga dhigaan qaar yaryar to obtain energy si ay uga soo saaraan amba si ay u helaan markaasi maxay tamar ayaa loo yaqaanaa respiration ereyga respiration soo kale wuxuu noqon karaa oo lagu magacaabi karaa isbedelka hawada macnaha qaadashada iyo soo saarista hawada qofka bini aadanka iyo xayawaanada kale oo dhambe ilaa irta ku daro ay sameeyaan ayaa waxa lagu magacaabi karaa respiration kaasina macno kale yeelanaya saa daraadeed labadaba maadaama respiration hoos imanayaan waxa lagu kala saaraa midna waxa loo yaqaanaa tissue respiration waa markuu jirka gudihiisa ka dhacayo midna waxa loo yaqaanaa gaseous exchange isbedelka hawooyinka waa marka la sheegayo breathe in hawo qaadasho and breathe out hawo soo saarid qodobka saddexaad waa excretion khashin saar it's a process waa habka by which living organisms noolayaashu get rid of ay iskaga takhalusaan amba ay iskaga saaraan waste materials walxaha wasakhda ah from the body jirkooda ay uga saaraan haddii waxa qofka bini'aadamku cunayaa intuu uga baahan yahay maaha inta kale jirkiisa ay ku ururto cudur iyo dhibaato ayuu keenaysaa sidoo kale waxaa lamid ah bini'aadamka xayawaanadii kale ee markaas iyaguna noolaa sidoo kale waxaa lamid ah xayawaanada dhirta iyaguna nool soo shay kasta oo noolii hadduu markaasi iska saar way waxaan u baahnayn dhibaato ay ku keentaa qaabku iskaga saar waxa loo yaqaanaa excretion qashin saar reproduction
ereyga reproduction waxaa la yaqaanaa waa taran weeyaan. It's a process waa qaabka by which kaasiyo living organisms noolayaashu produce ay usoo saaraan new offspring ubad cusub of their kind oo iyaga lamida. macnaha biniaadan buu dhali karaa, geeluna geel buu dhalaa, geedkuna geed buu dhalaa. saa daraadeed noolo kastaa noolihiisu buu dhali karaa, mid kale ka duwan ma dhalaba macnaheedu. waxaa inoogu xiga qodobka kusii xiga waa growth, waa koritaan. It's a process waa habka by which living organisms noolayaashu increase ay u kordhaan in size xajmi ahaan inta uu leegyahay. tusaale ahaan oo kale biniaadanka anagu si fiican u aragnay, xayawaanada si fiican baynu aragnay. marka hore wuxuu dhashaa isagoo yar, haddana uu yar weynaadaa, beerkuu isku ragaa, wuu gurguurtaa, saasoo u socda. marka maalintuu dhashay qofka biniaadankay ilaa iyo maalintuu dee noqonay qof taabagalay isku in ma leeka. isbedelkaa ku imanaya qofka biniaadanka jirkiisa ayaa waxaa loo yaqaanaa growth, koriin ayaa loo yaqaanaa. astaanta ku xigta waxa weeyaan sensitivity, waa dareen. It's the process waa qaabka by which living organisms kaasoo noolayaashu detect ay u ogaadaan and respond ay uga jawaab celiyaan to environmental stimulus carinta uga timaada deegaanka or amba maxay say uga jawaab celiyaan change isbedelka ku yimaada deegaankooda. haddii markaa tusaale ahaan oo kale qof binaadan uu ka hor yimaado ay oo ka hor yimaado libaax, waxaad qaadanaysaa dareen gooniya. haddii markaasi xaflada joogto waxaad qaadanaysaa dareen gooniya. isbedelka ku imanaya environmentka deegaanka aad ku nooshahay iyo dareenkaad qaadato ayaa waxaa loo yaqaanaa sensitivity, dareen celin baa la yidhaahdaa. ka xigaa waa movement, waa dhaqaaq. It's the process waa habka by which living organisms noolayaashu change ay u bedelaan their place, goobtooda, position, meeshooda. labadan erey waa laba isku macnaa laakiin diisa kala baaxad weyn. place ayaa markaasi wuxuu ka wen yahay marka la barbar dhigo position. okay, or posture amba qaabkooda. posture maxaa looga jeedaa qaabkooda? haddaad fadhido qaab baad leedahay, haddaad taagan tahay qaab baad leedahay, haddaad jiifto qaab baad leedahay, haddaad rukuucsan tahay qaab baad leedahay. qaababka kala duwanaad yeelan karto ayaa waxaa loo yaqaanaa posture. isbedelka ku yimaadana intaasoo nooc waxaa loo yaqaanaa movement, dhaqaaq baa loo yaqaanaa. waxaynu insha allahu tacaala geli doonaa markaynu intaa kasoo hadalay astaamaha noolaha. waxaynu baran doonaa maadaamanu biology baranayno waxaa door muhiima ka ciyaara markaa biologyga marka laga hadlayo shayga loo yaqaano the microscope amba weynaysada. waxaanu baran doonaa insha allahu tacaala muxuu yahay weynayso iyo maxaa markaasi faa'iido ku jirta iyo qaybaheeda kala duwan ay leedahay iyo qayb kasta maxay qabataa haddii ee beedmo. microscope-ku it's an instrument, waa qalab which enables us awood inoo siiya to see inaynu aragno very small organisms noolayaasha aadka u yaryar which can't be seen kuwaasoon lagu arki karin in naked eyes, isha qaawan. maxaa looga jeedaa? il dhar xidhan ma jirto, laakiin macnaha waxaa laga wadaa il aan taageero haysan. taageero maxaa laga wadaa? aan xidhnayn muraayado amba weynaysooyin amba soo dhawayso. marka intaba way noqon kartaa. waa in loo weyneeya markaa ishan, waayo isha biniaadamka waxaa jirta size amba xajmi ay arki karto oo wixii ka hooseeya aanay arki karin. sizeka amba xajmiga haddii la dhaafo ma arki karto. saa daraadeed noolayaasha yaryar aan ishu arki karayn si loo arko ayaa loo isticmaalaa microscope-ka, waayo wuu inoo weyneeya oo wuu inoo soo dhaweeya. waxaa inoogu xiga qodobka xig waxa weeye different parts of the microscope, qaybaha kala duwan oo leeyahay weynaysadu and their function iyo shaqooyinkooda in broad aynu barananaa si ballaaran from top to bottom. waxaynu ka bilaabanaa dusha sare, hoos baynu insha allah dhaadhacaynaa. waa sa inoogu qoran markaasi hoosta inoo taala. allahuma salli calaa maxamed. bal aynu eegna markaasi maxay qaybaha kala duwan oo microscope-ku leeyahay. microscope-ku waa kan ina hor yaala. in badan oo inaga mida waynu aragnay amba waxaad ku aragtay meelaha caafimaadada, cusbitaalada, shaybaadhadaad aragtay, laakiin heere kala duwan buu soo maray. marka waxaanu baran doonaa muhiimaddu maxay tahay, qaybaha kala duwan uu leeyahay, qayb kasta maxay qabataa. halkaas sawirkaas aan ku dul sharaxi doonaa. xagga dambe waxaa yaala jadwal markaa isaguna sharaxaya. markaa sharaxa jadwalka iyo sharaxa sawirkan ku dul sharaxayna insha allah labaduba waa isku mid. saa daraadeed waxaanu ka bilaabi doonaa qaybta koobaad. tube waa caag. caaga faa'iidadiisu waa maxay? wuxuu isku hayaa dhammaan qaybaha isaga ka hooseeya ama ku guda jira. marka waa xejisa, waa xabag oo kale. ocular, ereyga ocular waxa weeyaan
ishan laga hadlaya markaasi hoosteeda waxa ku jira muraayado amba weynaysooyinkaasoo isha la saaro maadaama yihiin weynaysooyinka isha la saarayay waxaa loogu magac daray ocular muhiimadeeduna waxa weeyaan waxa ayna siiyaan sawirka ay soo gudbiyaan weynaysooyinka hoose ee markaasi lagu weyneeyay shayga revolving nose piece waxa la nose piece waa qaybta sanka waxaana raacay eriga revolving waa qayb wareegta oo soo shookaanto kala oo aynu warwareejino markaynu doonayno inaynu isticmaalo weynaysooyinka kala duwan ee xajmiga kala duwan leh xagga hoose aynu ka arki doonaa insha allahu tacaala waa 3 weynayso oo kala duwan magacoodana markaas halkan ku qoran yahay saddexduna markaas waxa loo isticmaalaa in 3 size amba 3 xajmi oo kala duwan ayna siiyaan objective waa 3 weynayso inuu ka hadlaynay waa 3 markaasi saddexduba la hoos dhigo shayga la baranayo dibeetana aynu eegno shaygaasi inagoo isticmaalna 3 shay kala duwan marba markaasi isagoo xajmiya mar isagoo yar mar isagoo dhexdhexaada mar isagoo aad u sii weyn stage waa markaasi maxay barxadda la saaro shayga la baranayo ayaa la yaqaanaa stage clip waa xajiye waa markaasi xajiyaha barxadda waxa weeyaan waa meesha aynu dhigayno waxaynu baranayno qalab yar oo ku dul yaala amba irbad yar oo ku dul taala oo saa isku qabata bahalkan shaygan la baranayo si aanu dhaqdhaqaaq u samaynin oona isha markaas uga hoos baxsanin condenser waa ururiye faaidiisu waxa weeyaan microscope-kan aynu arkaynaa waxaa ku shaqeeyaa iftiin laambad baa hoosta kaga taala laambadaasna waxay soo saartaa iftiinkaasi ayuu isku soo ururiyaa hal meel buu markaasi kusoo tuuraa light source waa isha iftiinka waa meesha allahuma salli calaa maxamed uu ka soo baxo iftiinka wax lagu arkaya waa gacantu waa maxay waa tii la qabanaya marka microscope-ka la qaadayo isla markaana waa tan isku wada xijinaysa qaybaha microscope-ka ee kala wada duwan ee kala sareeya kala hooseeya coarse adjustment iyo fine adjustment waa laba magac bay leeyihiin labaduba marka waxaa odhan kartaa coarse adjustment amba coarse fox iyo fine adjustment iyo fine fox labadu markaasi waxaa loogu talagalay in shayga aad markaasi eegayso aad ku aragto mid waxa weeye inaad aragto shayga yacni halka ugu hooseeya inaad aragto oo si nadiif oo kaleero shucaan inaad ku aragto midna waa markaad doonayso shayga humaagiisa guud inaad aragto oo tiraahdo waxaasaan arkay maanta bacteriaan arkay plant cell unugii maxaade geedkaan arkay markaad doonayso inaad magacawdo laakiin markaad doonayso inaad aragto bacteriyada iyo waxyaalahaas inta leegtay iyo see u socotay waxaa la isticmaalaa fine adjustment mid kor bay u dhaqaajisaa labadaba kor iyo hoos bay u dhaqaajiyaan microscope-ka laakiin midna distance ama masaafo dheer bay dhaqaajisaa oo markaasi waa coarse adjustment waa taweyn labada midna waa fine adjustment oo aayar baad dhaqaajinaysaa si aad ugu beegato meeshaad doonayso lastly ugu dambeyntii waxaanu eegaynaa base sagxaddu waa meesha uu ku fadhiyo microscope-ka oo la-aanteed aan markaasi la shaqeynay baranay markaasi microscope-ka qaybihiisa kala duwanaa faa'iidooyinka leeyahay baynu baranay bal insha allahu tacaala aynu gudubno maxay qodobka inoo xigayno microscope-ka insha allahu tacaala ka baranayno kani waa microscope kaloo ka hore lamida waa magacii shaqadii iminkan sheeganay oo isku dul qoran waxaa inoo soo xiga kan oo ah markaasi jadwalkii aan ka hadlayay intii makaanaafka ka sheegay aan sharaxayay ayaa markaasi si xeel dheer ugu qoran intii oo markaasi ingiriisiyan baa inoogu wada taala sharaxuna waa sharaxuun wax isbedel oo markaasi kusoo kordhaya ma jiro allahuma salli calaa maxamed waxaynu usoo gudbaynaa ka inoo xiga oo loo yaqaano the magnification waxaa macnaheedu yahay weyneyn markaynu microscope-ka isticmaalayno waxaynu rabnaa shayga aynaan arki karin inaynu markaasi ka dhigno shay aynu arki karayno si aynu shaygan markaasi uga dhigno shay aynu arki karayno macnaheedu waa inaynu weyneynaa haddaba microscope-ka markaad doonayso intee in leeg ayaad rabtaa inuu kuu weyneeyo xisaab ayaa lagu soo saaraa markaa xisaabta markaasi lagu barto inta shaygaasi weynaaday ayaa markaasi aynu baran doonaa ereyga magnification asalkiisu waa weyneyn weeyaan okay aanu bar markaa baranno halkan waxaa noogu qoran sharax waxaa lanoo sharaxaya ereyga magnification iyo laba shay oo muhiima oo ardaygu markaasi inuu xasuunaado uu yahay oo aan insha Allah carabka adkeyn doono markaan marayo when a material is placed under the microscope marka aad shay hoos dhigto microscope-ka yani markaad doonayso inaad shay barato ood markaasi microscope-ka hoos geliso stage-keenu kasoo hadlaynay oo ahaa barxaddii ood clipkii ku qabato xitiyaha barxadda aad saarto for examination si aad wax u barato that material is called shayga aad meesha dhigtay waxaa loo yaqaanaa the specimen walax baa la yidhaahdaa or the object amba walax waa isku macno midna waa afka science-ka ayaa specimen loogu yaqaanaa afka ingiriiskana waxaa loo yaqaanaa object labaduba waa walax as the viewer receives an appearance of the object
marka qofka eegaya microscope-ku uu arko sawirka ama muuqaalka shaygan under the microscope ee xagga hoose ka soo baxaya oo kan weyneynaya that visual appearance muuqaalka aynu aragnay is called waxaa la yidhaahdaa the image sawir therefore saa daraadeed the ratio isku qaybinta ereyga ratio waa isku qaybinta between u dhaxaysa the sizes xajmiyada of the image ee sawirkii soo baxay xajmigiisa to the size of the object marka laysu qaybiyo loo qaybiyey shaygii asalka ahaa aynu baranay xajmigiisa waxaa loo yaqaana waxaa kasoo baxa labada isu qaybintooda magnification weyneyn obentown weyneyntu markaynu sawirkaynu haysanay intuu leegyahay u qaybino shaygii asalka ahaa inta uu leegyahay waxaa kasoo baxa loo yaqaana magnification waa kan iyadoo markaasi qaacida magnificationka waxaa lagu helaa size of the image inta uu leegyahay sawirku oo loo qaybiyey size of the object shayga originalka aynu baranaynay inta uu asal ahaan leekaa hal example baynu insha allahu tacaala kusoo gabagabaynaynaa haddii ay beedmo example-ku waa kan waa tusaale waxauna leeyahay during a microscope examination yani xilli lagu guda jiro xiisad lagu baranayo microscope-ka oo shay la baarayo a student arday found ayaa waxa uu ogaaday amba uu helay that the object size in xajmiga amba shayga inta uu leegyahay is 2 micrometer ay tahay 12 micrometer micrometerku waxa uu la macnayaa tusaale ahaan haddii soo dhaweyno waxay naqaanaan kilometer meter centimeter laakiin shayada aadka u yaryaraan isha bini'aadamku ari karayn marka la doonayo in la qiyaaso waxa la isticmaalaa qiyaas gooniyo loo yaqaano micrometer so micrometerku waa waxa yaryar marka la isticmaalayo and that of the image soo kale wuxuu ogaaday in xajmiga sawirku uu yahay 48 micrometer 48 micrometer haye maxaa la inaga rabaa calculate xisaabi the magnification of the image sawirku markaasi weyneyntiisa solution size of the object intuu shaygu leeyahay waa 12 micro waan soo sheegnay size of the image object intuu leekaa shaygu waa 12 micro sawirku waxa uu leeyahay markaasi maxay 48 micro magnificationka weyneynta markaasi markay labadaas ku qaybino kasoo dhacdo waxay noqonaysaa satan size of the image sawirka markaasi inta uu leeyahay divided by size of the object oo loo qaybiyo markaasi shaygu inta uu leeyahay hadda waa tan iyadoo markaasi noo soo baxaysa waxay noqonaysaa 48 micro oo intii ahaa sawirka uu leekaa oo inoo qaybina 12 micro oo ahaa intuu markaasi ahaa shaygu asalkiisu jawaabtu waa 4 macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay 4 times the original waxa la weynay shayga 4 jibaar intuu asal ahaantiisa hore uu leekaa saasna markaas waa asal loo xisaabiyo magnificationka iyo weyneynta the end waa dhamaadkii thank you wa aad baad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh